السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن داوديال ميل كستو هدافع عالمكن laga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkii waxtarka wariyaha oo toddobaadkiiba hal mar aad si live uga daawataan Facebook live to live annagoo markaasi ugu talagalay wariyaasha Soomaalida meel kastoo ay daafaca caalamka joogaan inay ka qayb qaataan. waan uga mahadcelinayaa dhammaan suxufiyiintii hore kuwii dambe iyo kuwa hore iyo kuwii igala soo qayb galay barnaamijkeena wax toddobaadkan. haddii ay barnaamij ka noqdo waxa aan rajaynayaa in saaxiibkay uu soo galo suxufi sare cabdinaasir soola oo barnaamijkan caawa marti ku ah haddii ay barnaamij ka noqdo. waan jecelahay insha allah in uu mar dhow soo geli doono haddii ay barnaamij ka noqdo. barnaamijkan arrimaha siyaasadda waa ka mamnuuc. waxaan ku qaadaa dhignaa arrimaha saxaafadda iyo budhiga saxaafadda sida wariyaasha Soomaaliyeed ay khibrad iyo aqoon uga heli lahaayeen suxufiyiinta markaasi barnaamijkan waxtarka wariyaha qayb lixaad ka qaata. waan uga mahadcelinayaa dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed kuwa igala qayb qaadanaya iyo kuwa kale haddii ay barnaamij ka noqdo. mar dhow haddii ay barnaamij ka noqdo waan jecelahay in uu soo geli doono saaxiibkay cabdinaasir oo markaasi barnaamijka igala qayb qaadan doona caawa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن داودي برنامجكي waxtarka wariyaha toddobaadkan haddii ay barnaamij ka noqdo cabdinaasir suxuf weyn ayaa caawa marti ku ah barnaamijkan ka qayb gelin doona haddii ka noqdo lagu mahadcelinayaa waqtigiisa qaaliga uu siiyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cabdinaasir. عبد السمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما صنتهاي والقالئة وصدق قالئة سيسي أديك waxtarka wariyaha هذا يضم صنتها. sidee maqashaa cabdinaasir horta maqalkaygu siduu yahay aad baan ku maqlaa si fiican oo ku arka ma sha Allah. waan kaaga mahadcelinayaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba sida sharafta karaamada iyo xiisiga leh aad barnaamijkan waxtarka wariyaha igala qayb qaatay inkastoo in badan aanu isweynay oo ruhaantii mashquulku iska badnaa. ruhaantii barnaamijku iska dhib badan yahay oo waa inaan wariyaha raadiyaa 2 bilood 3 bilood waqti dheer ma aha. barnaamijkan waa barnaamij macnaha fudud runtii marka loo eego barnaamijyada kale ee Soomaalida. marka ruhaantii caawan farxad bay tahay in cabdinaasir uu igala qayb qaato barnaamijka waliba dhiirigelin bay tahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay ku soo dhawow waa ku faraxsanahay. waa aad baan u fiicanahay barnaamijyada runtii aad baan ula socday cabdisamed waxtarka wariyaha dad badan oo rugcada ah rag aan asxaab nahay oo warbaahinta aad ugu dheereeya oo raggii maaragtay aanu ku dayan jirnay ahna aad waraysatay. runtiina waa iska safar badan waa iska shaqo badanahay mashquulan iska laakiin fursaddan laftigeeda aad baan u raadiyay aadan ugu faraxsanahay caawinaan isqaabilno ma sha Allah. وأنت عبد الناصر وبلابن دونا برامج كنا هدية برهالك النقطة قضب كوجو الرئي برامج كنا كوجو جري دونا وحن كهل دونا أرمى بدن أو بديك صحافة دا أرمى صحافة دا برامج كان روحانتي أرمى سياسة دا كما حضرنا إن وحاءات سوق بتابل وقت جي الصحافة دا كسو بيرتي يجوبي عاد وكسو شقيسي وهي هاي صحافة بالحوجة هذه جود مرية. waa mahadsantahay runtii saxaafadda anigu waxaan u soo galay si by mistake ama qalad ahaan aan ku soo galay mana ahayn qof runtii saxaafadda xiiseeya. shaqadayda iyo waxyaabaha aan xiiseeyo waxay ahayn dhanka iyo IT-ga dhanka waxbarashada culumaadka kombiyuuteraadka. marka waxa dhacday muddo iminka 14 sano ka hor la joogo ayaa waqtiga TV-da Soomaali ma jirin ama dibadda TV-ga kaliya jiray oo taariikhiyan jiray wuxuu ahaa kii ka soo bilowday magaalada Muqdisho. TV kale ma jirin. marka waxa xilliga soo baxay TV la yiraahdo Unif TV ayaa ka soo baxay wadanka Norway iyo magaalada London oo xilligaas aan ku noolaa. marka runtii aniga iyo waxaan ahayn inaan saaxiib nahay oo great journalist ah oo nin dhalinyaro ah maxamed deeq barre la yiraahdo oo radio danan hadda agaasimo ka ah 2014 2004 kii ay ahayd
marka TV-ga tijaabo lagu sameynaya habeenka ayaa waxaa la yidhi cabdinaasir isku dayaysa ayaa la yidhi anoon waxba ka aqoon warbaahinta marna ka horna aan ka hadlin meel marka habeenkaas nasiib wanaag waxaa noqday qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo TV Soomaali ah ka hadla oo ka soo baxa oo laga arko anoo wareysanaya fanaanka weyn mujaajilistaha weyn Cabdulqaadir Awkombe aniga iyo maxamed deeq barre kadibna waxaanu sameynay barnaamijyo aad u xiiso badan saas ayaan ugu horeyn aan ku soo galay markii dambena waqti badan ayaan geliyey oo dhanka warbaahinta ah barnaamijyo aad u fara badan ayaan sameeyey oo ay ka mid yihiin barnaamijka cayaaraha barnaamijyo badan ayaan tarjumay sida barnaamijka muqdisho 1980kii qudus waxaan sameeyey barnaamijyo kaloo kala duwan dad siyaasiyiin ayaan wareystay 2009kiina course ayaan galay oo journalism ah oo lagu barto oo shahaado aan ka qaatay oo lagu barto baaritaanka ama waxa la yiraahdo investigative journalism markii dambena waa iska jeclaaday laakiin wuxuu iska ahaa wax secondary ah ma ahayn wax ma aragtay meherad aniga aan u lahaa oo aan ku shaqaystay lacag aan ka sameeyay ma ahayn laakiin aad baan u xiiseeyay ilaa haddana alxamdulillah waa ku jira waqti badan ayaan ku jira 14 sano ayaan ku jira sanadkan ayta waa tahay waan daawan jiray ciyaaraha adoo kasoo deyn jiray TV-ga Universal ruuxantii barnaamijyo wanaagsan bay ahaayeen kugu amaanaya marka intii aad saxaafadda ku jirtay aad deerto aad qaadatay shahaadada aad arrimaha saxaafadda wax ka baratay shuruucda saxaafadda caalamka sidee hadda ula jaan qaadi karnaa haddaynu Soomaalina hayno wallahi de Soomaali haddii aan u eegno qaabka dadkii hore ee lagu yaqaanay BBC-da Radio Muqdisho Radio Hargeysa iyo kuwa kale oo dagaaladii kadib soo baxay xoogaa runtii way ka duwanaayeen dadkii hore loo yaqaanay warbaahinta ku jiray ilaa kontomayadii ku jiray marka shuruuc dad qaarkood ku dhaqan way jiraan oo la dhihi karo waa weriye caalami ah la isku halayn karo yaqaana shaqadiisa ka soo bixi kara dhexdhexaad wax samayn kara laakiin maantadan aan joogno 2018ka 2010 lagu jiro haddii aad tiraahdid weriyaashu qaabka ma u dhaqmaan waxay noqonaysaa 10% ama boqolkiiba 10 ayaa laga heli karaa weriye la dhihi karo magaca weriye qaadan kara oo soo bartay oo barashada ka sokowna tababar la soo siiyey la baray micnaha warbaahinta iyo weriyaha ay tahay laakiin way dhammaadeen waxaan hadda sii dhameeyay waxay tahay arrimaha social media haday soo baxeen sheekadii werinimo waxaan filaya inay dhammaan doonto mar dhow insha Allah maxaa kaaga baxay siday u shaqeeyaan warbaahinta Soomaalida oo kale warbaahinta Soomaalida way kala duwan tahay waagi Universal rag badan oo qaarkood geeriyoodeen ilaahay u naxariisto oo kamid yahay Axmed Xasan Caawke iyo Cabdirashiid Ismaaciil Teera oo mar dhow sanadkan geeriyooday rag waxay ahaayeen anagu aan ku daysan jirnay oo maartay aan dhihi jirnay waa ragii rugcadaga sportiga ka shaqeyn jiray sportiga ka shaqeyn jiray siyaasadda wax walba laakiin markii dambe TV way isbedeleen waxay iska noqdeen ganacsi isku noqdeen waxa la yiraahdo pay as you go ku shubo ha ku shaqeeyo kale ay noqdeen oo waxay iska noqdeen maanta qof siyaasi hadduu soo waco ama qof kale yiraahdo iyo ammaan ama wax iga sheeg waxay doonaan iska soo gudbiye hadda kor waxaan arkay weriye rugcada ah oo aan doonay magaciisa inaan sheego halkan aan ka sheego warar soo dhacay TV-da ka mid ah inuu yiri ma sheegi karo waayo gobolkan ka soo jeedo ayay saameyn ku yeelanaysaa marka waxay ku tusaysaa isbedelka dhacay iyo sidii wax u yahay markii dambena rag badan ayaa soo baxay maaragtay oo wariyaashii horena ahaa sida Cabdiqaadir Nadaara iyo ragga dhalinyarada ka dambeeyay Hareeri iyo kale rag waxa jira oo la dhihi karo waa professional journalism laakiin wixii ka dambeeyay waxaan aragnaa Cabdisamed magacii weriye in isbaara loo dhigtay ama jidgoy loo samaystay oo qof walba oo aragtid qofba waxa lagu leeyahay intuu soo galo 1 hour program uu sameynaya qof bani aadan ama madax ah ama haween ama waxay ahaataba ayuu caynay waxa lagu leeyahay weriye jaamac ama weriye Cabdisamed ama weriye Cabdinaasir ama weriye hebel ayaa lagu leeyahay marka arkaysa in sidii professorkii iyo doctorkii iyo loo afduubtay ayaa meheradii werinimadan loo afduubtay waa tahay intii aad saxaafadda baranaysay macad baad gashay koorash baad qaadatay fiican arrimaha saxaafadda wax ka baratay wariyaha madax bannaan ma baahin karaa warbixino ku saabsan dil dhac kufsi haddii ay tahay jawaabtu haa maxaase looga baahan yahay aad ku baratay horta discipline ayuu leeyahay ama wuxuu leeyahay qaab wariyaha xilliga waxyaabo qaarkood ay dhacaan u soo dayn karo markuu madax bannaan yahay marka madax bannaanadu maxay tahay madax bannaan tahay madax bannaan ahaan tviyada Soomaaliya kale aan ka soo qaaday university
galay oo aan waqti badan aan la soo joogay ahaan madaxweynihii hore ee maaragtay dowlad goboleedka deegaanka Soomaaliya Cabdi Cumar oo kale wax isaga wax ka sheegay lagama soo deyn jirin marka wariyaha soo dira ama kan sameeya ama kan iskale ama kan maamula ma dhihi karaan waxaan nahay objective ama waxaan nahay waa u madax bannaan nahay sababtoo ah dhaqaalaha aato cabsiha aato waxay ahaataba markay u timaado arrintan ah dhaca dilka kufsiga waxaan aragnay wariyaal lagu tilmaamay wariye oo camera wata ama soo gudbinaya maid meel yaala anshaxa ugu horeeya ee tababarka loo siiyay wuxuu ahaa maidka waa secret ama waa wax maaragtay la doonayo in la xafido marka qofka hadduu dhinto wax ka daran oo lagu samayn kara bayratay ma jirto marka maidka waa la xafidaa iyo kufsiga gabadha la kufsadayna waxa dhacaysa iyadana in la xafido kale oo meel mugdi la fadhiisiyo oo la yiraahdo qoftan waxba ku dhax xataa codkeeda la bedelo marka laakiin hadda waxa dhacday in loo tago waxyaabo ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa arrin ka dhacday magaalada Jowhar oo adiga xataa si fiican uga warqabtid oo wariye oo hadda ka horna aan runtii ku difaacnay dhanka warbaahinta xilli la xiray wariye haddii la xiro marba in la difaaca markii dambana justification ku samaystay oo yiri islaanta iyada ah ee 80 jirka ee la kufsaday iyada okay dhahdo ogolaatay in maaragtay la wareysto marka wariinimada anshax ay leedahay waxyaalo qaarkood aan la soo deyn karin baa jira waxyaalo qaarkood maaragtay iyo adoo la doonayo inaad hubisid wixii lagu keeno tusaale ahaan xilligii tababarka aan sameynay anigu waxaan xasuustaa investigative journalism ilaa ma aad gacanta aad ku haysid sawiro emailo video caddayn ah in qofna aad wax ku eedayn karin intaadan wax soo qorinna qofka aad la xiriirto aad tiraahdo Cabdi Samed arrin baan kaa hayaa ma doonayo magacaaga inaan banaanka soo dhigo wax jawaab ma ka hayso hadduu ku yiraahdo kama hayo kulamana soo xiriirayo waa samayn kartaa adiga markaas idin kartaa laakiin hadda waxaad arkaysaa nin baa sawir soo qaadanaya wuxuu leeyahay wasiir Cabdi Samed ama wasiir Cabdi Naasir waa tuug lacag buu dhacay markaas ku leeyahay waxaan soo tabi wariye hebel taasi waa anshaxa wax walba oo qofka meheradiisa ay tahay uu ka shaqeeyo Cabdi Samed anshax ayuu leeyahay laakiin anshaxii 90% gabiyahan waa luminay watahay in warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa kale faraqa u dhaxeeya muxuu yahay maxaase isbedela oo dhacay in warbaahinta aan dhexdhexaadka ahayn marka laga hadlayo well طبعا farqi aad u weyn ayaa u dhaxeeya tusaalahaan haddaan ka soo qaado tv-ga SNTV oo kale lama dhihi karo waa warbaahin madax bannaan sababtoo ah wax objective ah oo dowladda Soomaaliya iminka joogta ama kuwii ka horreeyay inta la soo fadhiisa ma laga sheegi karaa maya anaaba arkay marar badan dad la yiri dowladday rabaan in waxyaabo dhibaato ay geysteen ama waxyaalo lagu hayo in qof laga wareysto markaasaa la yidhaa anaga wax dowladda laga sheegayo waayo dowladdii ayaa iskale musha marka kaas lama dhihi karo wax banaana iyagana madax banaana waana fact waa wax jira ka soo qaad Universal TV oo kale iyo kuwa kale Somali Cable objective ma ahan qaabkay wax u sameeyaan ma aha inaan ku eedayo marar badan ayaa barnaamijyo sameeyay marar badan ayaa waxaan maaragtay waraysiyo badan ayaa qaaday BBC Soomaaliya oo kale oo hadda objective-kooda dhinac kale aaday Voice of America oo kale sidaas oo kale marka ka madax banaan wax alla wixii meesha yaala ee jira siday u jiraan iyo banaan kusoo dhigaya laakiin maalinta la yiraahdo ha soo daynin waayo Cabdi Samed mise Cabdi Naasir ayaa xanaaqaya ama lacagta ku siinaa kaa goosanaya ama xayeysiin kaa joojinaya waxaad noqonaysaa madax banaani maadaama ku yiraahdo maanta waa madax banaana waan madax banaana sababtoo ah TV-na uma shaqeeyo maaragtay TV wax ka awood weyn kulay aad weydiin social media ah wixii aan facto jira ama shabakada Solar Portal aan ku soo qoraa ama live baan soo galaa anoo cidna ugu filan marka madax banaanidii iyo kuwa la maamulo gabi ahaan way kala duwan hadda TV maanta aan dhihi karo waa objective waa ku yaryahay waxaan dhihi karaa kaliya boqolkiiba konton oo objective ah oo madax banaan dhihi karaa Home Cable TV oo ay ka shaqeeyaan wariyaal professional ah ugu weyn yahay Cabdiqaadir Maxamed Faarax Dulyar oo aan dhihi karo waa wariyaasha ugu hadda rugcadaag ah ee Soomaaliya iyo dhalinyarada soo baxaysa hadda oo ay ka mid yihiin Cabdixaafid Maxamuud oo ka shaqeeya TV-ga Universal iyo Maxamed Yuusuf RTN raggaas ayaa rag aad aragtay markay barnaamijka sameeyeen objective inay yihiin laakiin dadka kale waxaad arkaysaa PSG wax la yiraahdo waad ku shubaysaa maanta dhan way ku buraanburayaan dad kalena way jiraan gabdho wanaagsan baa jira sameeya barnaamijyo fiican laakiin subjectivekii wixii ahaa ee wariyanimada ee madax bannaan waa la lumiyay gabi ahaan waa tahay maadaama aad baratay cilmiga saxaafadda isla markaana aad dhanka siyaasadda u badan tahay marka aad baaritaan samaynaysid wadda intee leeg baad u martaa Cabdi Naasir
way fududahay horta haddii aadan doonaynin in lagu baaro ama lagaa hadlo ama lagaa sheekeeyo madax lama noqdo waa ninkii yiri ice creamka ama jalaatada la iibiyo haddaadan doonayn in lagu dabagalo marka qofka soo gala shabakada dad badan ayaan baaritaan ku samaynay aad u fara badan oo aad looga yaqaan baraha bulshada xilliga baaritaanka aad samaynaysid solarportal.com waa objective meel buu abaarsan yahay meeshuu abaarsan yahay wuxuu kusoo bandhigayaa oo lagaa doonaya waxa lagu leeyahay qoraal kaliya lama dooni maayo cabdisamed haddii baaritaan aad ku samaysid waxaa la doonayaa in aad soo bandhigtaa tusaale ahaan kii ugu weynaa aan samayn waxaan ku samaynay farshaxanistaha la yidhaahdo amiin camar ayaan ka samaynay qof walba uu arkay waxaan soo bandhignay wixii meesha yaallay qof dhihi kara male hebel baa ka soo horjeeda mise heblaayaad necab tahay ma ahan wixii waa objective marka waxaad soo maraysaa baaritaan baad samaynaysaa baaritaanka wuxuu bilaabanayaa oo training aan ku soo baranay qofkaas hadduu yahay qof bulshada laga yaqaano magaca kule la yaqaano mar buu hawada soo gelaya markuu soo galana waa qof bani aadan qofaan qalad galin male qalad buu galay wax buu samaynayaa waad baaraysaa markaad baartid wixii oo caddeynaa soo dhigaysa laakiin haddii qoraal keliya intaan soo qaato aan idhaahdo cabdisamed waa sidan waxba tari mayso waxaan doonaya sawir cabdisamed ah cabdisamed oo waxaa laga hadlayaa shalay wuxuu ammaanayay dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya maantana wuu ka soo horjeedaa bal soo barbarig sawiradii iyo qoraaladii uu diyaariyey wax walbana online ay ku jiraan haddii aadan doonayn in laga hadlo online lama soo galo gurigaa la iska joogaa hawadaa laga daawadaa marka waxay u baahan tahay waqti dheer bay u baahan tahay in la soo bandhigo dadkuna ay kugu soo laabtaan sababtoo ah haddii maanta aan qoraal soo qoro aan hebel aan caayo reerkiisa aan caayo xaaskiisa caruurtiisa waxaad tahay qof maaragtay xanaaqsan oo doonaya keliya inuu naqaska iska saaro laakiin haddii aad tahay investigative journalism khaasatan markaad tahay waxaa lagaa doonaya wax objective ah dadku ay arkaan ay banaanka soo dhigaan qof walbana uu ku qancin karo dhihi karo baaritaankan hadda balgala solarportal.com waa taqaanaa waad akhrisaa waxaad ku arkaysaa intaasoo baaritaan dadka lagu sameeyo qofna loogama baqa markaa waayo qof inaad ku ammaantid ama iga qallee ama wax iga soo qorin ma ahan meeshan maahan facebook oo hebel buu soo cayay ma ahan dad inaad caysid uma baahnayd dad journalistaad tahay waa in aad soo qortaa wixii jira aad sheegtaa qofka aad soo bandhigtaa qaabkaas ayaa trainingkan usoo qadan qaabkaasaan loo sameeya waa tahay daawadayaasha qaar ka mid a asxaabteeda waxay ku leeyihiin cabdiqaadir qoyste wuxuu ku leeyahay wuxuu ku weydiinayaa su-aalaha maxaa kuu kalifayn siyaasadda aad u wareegto ma waxaad tahay musharax raadisa arrimaha siyaasadda markaad dhex gashay buu ku leeyahay waa su-aal muhiim ah runtii horta walaalkeen su-aasha soo weydiiyey su-aashiis waa muhiim maya siyaasad xiise uma qabi siyaasad dooni maayo madaxtinimo dooni maayo xil dooni maayo taasna dee meel bayba iigu xaraysan tahay oo marar badanna waan ka hadlay laakiin qofku choice buu leeyahay anigu waxaan soo bartay IT ayaan soo bartay journalism waan soo bartay laakiin de qofkii maanta hadda caawa waxaan kala soo hadlayaa magaalada Istanbul qof ma imagine Istanbul inta Soomaali iyo Turkida aan isku soo dhawaanay laakiin qofkii caawa yiraahdo Istanbul maxaa ku geeyay ama Dubai maxaa ku geeyay ama Toronto maxaa ku geeyay de qofka choice buu leeyahay qofka siyaasadda waa geli karaa qofku wuu geli karaa sporti ani waxaan hubaa siyaasadda iyo sportiga haddii lasoo eego boqolkiiba boqol Soomaalidu waxay xiiseeyaan siyaasadda saa awgeeda siyaasaddii waan u kuuro galay waan arkay qaabkay wax u socdaan waana ka hadla anoo objective ah oo dowladdana taageersan kana soo horjeeda dowladaha kale ka hadla meel walba ka hadla marka muhiimaddu ma ahan inaan doonayo xil inaan qabto ama isa soo saara iyo annaga Facebook oon jirin banaanka waan joognay tvyadan ka hadli jirnay u malayn maayo in aad maqli doontaan siyaasi cabdinaasir oo maanta loo buraanburayo oo taay wata inaad arki doontaan ilama aha intaan noolahay insha allah waa tahay waan jeclahay inuu ku qancay su-aasha ma ku tala jirtaa cabdinaasir ahaan suxufiyiinta waxqabadka wanaagsan ee arrimaha barnaamijyada waxqabadka keena in aad shahaado sharaf iyo hadiyado aad guddoonsiisid adiga oo ka socda qaybtaada baaritaanka oo eegaya wariyaha markaasi maanta ugu fiican ama barnaamij fiican keena ama wax fiican keena waxqabad fiican qabta ma ku tala jirtaa arrinta soo la'aan well absolutely marar badan ayaa waxaanu samaynay barnaamijyo noocaas waagi university b aan joogay laakiin hadda cabdisamed isbedelka wuxuu ka yimid dhanka iyo social mediaha ayaa wax walba bedelay maanta waxaan aqaana rag radio hadda maxamed deeq barre fiore marar badan ayaan ka sheekeeyey oo aan ka hadlay waa nin dhalinyaro ah waana qof rugcadaa ah oo maanta la dhihi karo waa ragga maaragtay warbaahinta Soomaaliya laakiin inta badan lama maqlo sababtoo ah ma ahan controversy wax la yiraahdo ama qof maaragtay dhacdhaca ma ahan haddii maanta fioro kale uu intuu soo fadhiisto social media ama radioga uu madaxweyne ama madax ama hebel wax ka sheegi lahaa uu aflagaadeyn lahaa waxa la yiraahdaa waa wareey hebel nin qatara soo baxay
marka qofka muxuu ku mutaystaa wuxuu ku mutaystaa cabdiqaadir faarax dulyar oo kale barnaamijyada uu sameeyo ka sokow siyaasadda iyo wararka wuxuu sameeyaa barnaamijyo ku waraysanaya fanaaniinta Soomaaliya kale ku waraystaa fankii sugaantu keenaa waana objective meel buu ku socdaa laakiin maanta haddii uu soo fadhiisto ay ismaagaan qof siyaasi ah uu yiraahdo ninkaas aan barnaamij ka sameynayaan dalagelayaa sida ay sameeyaan shabakadaha qaarkood ee Soomaalidu ay leeyihiin qurbaha gudaha radioga waxaad arkaysaa TV waxaan arkay Cabdisamed shakhsi wariye ah oo fadhiya oo la doonayo inuu dhexdhexaad ahaado impartial ahaado oo la murmaya qofkii meesha fadhiya kula murmaya arin isaga uu soo bandhigay tusaale ahaan haddii maanta adiga adiga wareysanaysid dawladda aniga jawaaban ku siinayo adiga waxa la doonayaa dawladda aniga waan ka soo horjeedaa adiga inaad difacday laga doonayo wariyaha waayo dawladda meesha ma joogto marka waxaan arkay wariyihii oo TV ma doonayo inaan magaciisa sheego meesha fadhiya oo qaylinay oo xanaaq laga dareemayo ka wariye ma aha wariyaha waxa la doonayaa inaad noqotid tusaale ahaan BBC News BBC-ga Soomaaliga hadda ayaamahan dambe waagi hore wariyaal waxa lagu yaqaanay caan ah oo qaarkood dhintay qaarkood nool hadda oo maartay laakiin isbedel weyn baa ku dhacay hadda waxaan aragnaa qaarkood dadka maamulka ugu sareeyo kale markay ay barnaamijyo ay soo daayaan ra'yi inay ku soo darsadaan wariyaha ra'yi male adigu xilliga aad shabakada waxtarka wariyaha aad ka shaqaynaysid Voice of America BBC Universal you don't have opinion ra'yi male waayo ra'yigaaga wuxuu noqonayaa dhexdhexaad noqon maayo ra'yigaaga gurigaaga la tagaysaa xilliga shaqada aad ku jirtid waxaad samaynaysaa inaad dhexdhexaad ahayd waxa laga yaabaa dawladda Soomaaliya adduunka inaad ugu jeceshahay haddii dawladda Soomaaliya qalad ay sameeyaan waxa laga doonayaa siday tahay inaad u sheegtaa hadday wax sax ay sameeyaan siday tahay u sheegtaa laakiin haddaan iraahdo dawladdan jeclahay wax alla waxay sameeyaan waa qalad waxa dhacday asbuuc ka hor yaan filayaa anoo jooga Canada waxa shaqadii laga qaaday wasiirka waxbarashada qoraal baan soo qoray oo yiri hadalkii saxa ahaa aad tiri baa shaqadaada ku lumisay isla markaana barnaamijkan ka sameeyay anoo ka soo horjeed gabi ahaan nin dawladda ka tirsan baa soo wacay wuxuu yiri warniyo waxaan ku moodi jiray nin dawladda aad u taageeray maxaa dhacay dawladda ma ka soo jeeda ma yaan idin dawladda waan taageeraa baan laakiin dawladdu hadday qalad samayso lagu raaci maayo hadday sax samaysan mar walba lagu raaci maayo mar walba waa in dhexdhexaad loo ahaadaa oo wax loo sameeyo laakiin hadda xilligan aan joogno waxa soo baxay dad magacii wariyaasha wata oo markay soo fadhiistaan meesha u socdaan isla markii waa loo jeedaa tusaale ahaan BBC-da sanad guradii koowaad dawladda marka la wareystay waxay yiraahdeen waxa laga wareystay Fox of Africa oo ah barnaamij aad u weyn wariyaha wuxuu yiri waxaan aad u la yaab waxba isma bedel buu yiri Soomaaliya taas waa subjective way adiga waxa laga doonayaa as a journalist oo u shaqeeya isla organization-kii wixii adiga aad sheegtid inay ahaadaan wax aadan ra'yigaaga ahayn marka qofka hadduu yiraahdo Soomaaliya 1 year anagoo siyaasadda iska ilaalinayna waxba isma bedelin dhibaatay keenaysaa kadibna ay dhacday dhowr asbuuc ka hor ra'iisul wasaaraheena Mr. Khayre oo tagay magaalo kamid magaalooyinka Soomaaliya oo markaas uu ku yiri ma martiba ku tahay ma noqonayso waa adoo hadda su'aasha ay weydii anoo qof Turkish ah Istanbul jooga ma laga yaabaa siyaasi hebel baa tahay ina Istanbul adoo reer Ankara ah Istanbul ku timid marka wariyaha waxa laga doonayaa inuu ahaado dhexdhexaad inuu su'aalihii uu diyaarsaday loo soo diyaariyay soo saaraha producerka iyo dadka diyaariya ay u sameeyaan waayo BBC oo kala ma noqonayso TV-yadan iska yar oo Soomaalidu kala ma ahan waa TV-yaal ay ka dambeeyaan maartay editorial director ay ka dambeeyaan qalad ay sameeyaan ay ka dambeeyaanayso marka dad badan ayaa shahaadooyin mutaysadaan ku soo laabto dadka maanta haddaan siin lahaa shakhsiyan aniga waxaan ku bilaabi lahaa maxamed deeq barre dulyar cabdixaafid maxamuud maxamed yuusuf iyo gabdho qaarkood oo maaragtay gadaal aan ka soo sheegi doono laakiin dad aad u yar ayaa mutaysan maanta magaca wariye in loogu yaro isla markaana shahaado la siiyo waad ku rajo weyn tahay in sool ahaan aad qabatid oo barnaamijka fulisid boqolkiiba boqol aniga maaha aniga iyo waxa kaloo jira shakhsi ku jira hadda dhanka warbaahinta oo isla markaana wasaaraddan la shaqeeya ayaa arrimahaas wada in la sameeyo sida loo sameeyo waddanka Ingiriiska iyo wadamada kale loo sameeyo journalist of the year la sameeyo inta badan waxa loo sameeyaa shabakadaha iyo meelaha ayaa lagu soo qoray journalist of the year waxyaalahaas anaga waxaan rabnaa inaan sameeyno barnaamij ah oo hadda ka hor aan kuu sheegay ah in soo saarihii sanadka journalistii sanadka investigative journalist of the year waa la sameeyo qofka ugu soo saarista badan marka waxyaalahaas insha Allah ku tali jirna waana kamin suray noqonay ilaa hadii yiraahdo
waa tahay marka waraysiyada la jarjaro oo kale waraysi madaxweyne ama waraysi shacab qof shacab ama qof social mediaha lagu ceebeynayo oo lagu jarjarayo arrintaas sidee baaritaankeedu sidee yahay baaritaankeedu aad ayuu fudud yahay waxaa dhacaysa waxa ku jira internetka la soo geliyo horta been lagama sheegi karo dadku laakiin way rumaysan karaan wax walba maanta sawir haddii aan soo geliyo oo inta photoshop lagu sameeyo video la sameeyo oo la bedbedelo qofkii yaqaano waa garan karaa laakiin dadka ugu badan ee audience ah ee daawata ama akhrisa ma garan karaan waan aragtay marar badan ayaan soo bandhignay qof walba lagu qaldi karaa hadda kor waxaa dhacday dhowr bilood kor waxaa dhacday in video la soo jarjaray oo wasiiradda dhalinyarada sportiga iyadoo arrimo qabiil ka sheekeynaysa la ii soo diray qaasatan u istiro qof aan aaminsanahay anigoo xilliga aan haynin laptopkii aagoolin gacantaan ku haysay mobile oo aan arkay ay iga hoos baxday ila baraadi baad tahay inta badan waxyaalahaas waan iska ilaaliya igama hoos baxdo waan soo geliyey anoo hadallo ku soo qoray cirku ku dhegay markii dambe oo aan tegey xafiiskaygii oo videogii aan sii egay waxaan ogaaday videoga in timelinekiisa aan soo qaaday oo softwareka editka aan dhexgeliyay timelineka inuu isbedelay oo hadalladii la isdhaafsiiyey kii originalka ayaan raadiyey waan helay sida professional journalism waan ka saaray kii originalka ayaan soo geliyey isla markaan raalgelin ayaan ka bixiyey marka waa muhiim haddii aad tahay journalist weriye aad tahay qalad lagugu qabto oo aad samaysid gacanta kor loo taagaa waxaa la yidhahdaa I'm sorry qalad baan galay waxaad helaysaa taageerayaal aad u fara badan ayaad helaysaa waxaad helaysaa dadka inay ku aaminaan laakiin haddaad tidhaahdid maya way tahay ma dhici karto wayna soo bateen sawirada hadda waraaqaha ugu badan shabakada solar portal boqolaal waraaqood oo kuwa qaarkood fidna samayn lahaa ayaan soo bandhignay sababtoo ah qofka markuu been sheegayo wax buu iloobaa intaas un baa la eegaa waraaqaha waan iskaan garaynaa software baan gelinaa markaan gelino fontiga lagu qoraan eegnaa waxaan eegnaa hadda xataa waxaa bilowday sheekooyinka whatsappka instagramka facebooka messageka waxaa la leeyahay caawa cabdinaasir iyo cabdisamed waxay ku sheekaysteen iyagoo gabdho iyo hebel siyaasi caynaya ayaa la sameeyaa oo aan ka daba tagnay oo la qoraa anaa kule cabdisamed heblow ka wara war heblowaan sidaan adoo soo qoraysta oo been abuura waa la soo dhigay dadku laakiin way rumaysanayaan waxay leeyihiin acuudu billah warraggaan waa weyn maxaa ka qaldan marka way badatay laakiin haddii aad aragtid waraaq la soo qoray haddii aad aragtid sawiro la soo geliyey video intaadan qaybin marka hore indhaha ku dhufo hadday kaa hoos baxdo oo lagugu qaldo ka saar kii originalka raadi gacanta taag raaligelin bixi waxaad noqonaysaa qof la aaminsan laakiin haddaad ku adkayshado aad tirahdid ama codad baa hadda la sameeya waxaa leeyahay hebel baa hadlaya xataa waxaa la gaaray stage dad ma aragtay aniga shakhsiyan waalidkayga caruurtayda xaaskayga qof walbo aniga igaag dhow habeenii magaalin soo cayay laakiin mar kadib aan arkay cod looga been abuuray la ii soo diray aan idhi codkan waa been abuur qofkan wuxuu doon ha ahaado waa qof xun laakiin codkan isaga iska male taasna waxay ku siinaysaa waxa la yidhahdo credibility ama waxay ku siinaysaa magac wanaagsan ayay ku siinaysaa waayo waxaa tahay qof objective ah oo shaqada inay yaqaan qaban karan waa tahay ururas badan baa ka jira soomaaliya sida labada urur ee soomaaliya ugu waaweyn ee nusaj oo kale qaab noocaaba is leedahay baa loo midayn karaa ururada ururada labadaba waan maqlay horta meelo kala duwan bay ka kala jiraan waa laisku haystaa aniga weli member kama noqonin ma aqaana qaabkay u shaqeeyaan laakiin waxaan ogaaday dad rugcadaa ayaa ku jira weriyaal oo la yaqaano laakiin meel laysku haysto cabdisamed haddii aad aragtid waa laga fogaadaa aniga runtii waan iska ilaaliyey midayntoodan waxay ku xiran tahay dadka qof walba inuu meesha soo fadhiiso soomaalidu dhibka waxayse qof walba kibir ayaa ku jira waa kibran yahay anaa kaa fiican qof ka fiican ma jiro qofba qofku ka wanaagsan yahay ayuu ka fiican yahay cabdisamed saa aageeda kuwa isugu tegay journalistada iyaga ayaa la doonayaa waxaa laga doonaya wasaaradda warfaafinta ayaa laga doonaya oo hadda dad maaragtay wanaagsan oo shaqada yaqaanan ay qabteen marka kuwan siday ku midoobi lahaayeen u malayn maayo xataa xuquuqda wariyaasha maalin walba la gumaado ama la xiro inay xataa wax u qabtaan inay condemnation ay sameeyaan oo yidhaahdaan in la sameeyo maahan dhib ay ka hadlaan maayeen wax kale ma sameeyaan in la miday way fiican lahayd laakiin haddaaba aragtid wax faraaruq hadduu jiraba faa'iido imaan mayso meeshaas waa tahay suxufigu sidee uga qayb qaadan karaa nabadaba leedahay ka jirta dalka well tabcan nabaddu waa tan ugu wanaagsan waayo qofka hadduu maanta soo tabiyo aniga waxaan arkay oo qof suxufi igula dagaalay
sawir ka dhacay waddanka Nigeria oo ciidamada Nigeria ay xasuuqayaan dad Boko Haram qoladan argagixisada ay xasuuqayaan oo godad ay ku ridayaan ayaa wuxuu ka dhigay inuu yiri oromadii siday Soomaalida u leynaysa bal eeg ayuu soo geliyay dad badan ayaa waxay yiraahdeen subhanallah dadkan waa inaan ka argudsanaa inta aniga waan arkay waan soo qaaday software-ka ayaan geliyay sawirkii uu ii soo qabtay labadii sawir aan soo rajay waxaan iri kan Soomaaliman waa Nigeria ninkii wuxuu igula dagaalay soo diray uu yiri ma waxaad leedahay oromada Soomaali ma xasuuqday leedahay waa xasuuqdaa baan iri laakiin sawirkan waxaan iri waa Nigeria Soomaali ma ahan waana run laakiin isaga objectivekiisu wuxuu ahaa inuu dad ka dhaadhiciyo dadkan waa Soomaali طبعا oromada Soomaali way xasuuqdaa keen sawir keenso inkastoo suxufiga uu ka xaarintay si yahay inuu ma aragtay dhibaato iyo uu abuuro iyo ma aragtay uu sameeyo marka suxufiga waxa looga baahan yahay maanta dad ayaa jira wariye lagu tilmaamo oo social media soo gala website-yada iskale TV ka soo baxa oo Soomaaliya waxay ka dhigeen inay tahay meel la isku cuno meel shaahi aan laga cabi karin meel lagu noolaan karin qarax baraay sababtuna waxay rabaan wixii dadka iyaga u shaqeeya ay doonayeen inay maqlaan marka wariyaha wixii jira hadduu sheego nabadana way keeni karaan way ka caawini karaan sababtoo ah maanta haddii uu yiraahdo dad ba waxay yiraahdaan qarax weyn ayaa xamar ka dhacay anoo xamar joog anoo muqdisho joog waxay leeyihiin qarax weyn ayaa ka dhacay oo aan maqlin dad baa lagu laayay aan maqlin marka qofkaas wuxuu wato objective ma doonayo nabad ma doonayo marka wariyaha waxa saaran hadduuba wariye yahay aan ka hadlaynaa cabdisamed ka hadli mayno qof walba wariye iska anoo hadda ku yiri akhtar baan ahay oo kale ma aqaan ciidad qof si loogu mudo marka wariyaha hadduu yahay waxa la soo barayaa in hadalkiisa maleer uu gaaro maanta waxaan hubaa annaga raggeena warbaahinta ku jira markay hadlaan oo yiraahdaan haddaan maanta soo fadhiisto oo qabiil aan ka hadlo qabiil hebel waa inuu la dagaalaan yiraahdo iyo qof banaanad ka qayliyo Facebook ka soo gala qofka la aaminayo waa loo geeyay waxa la leeyahay qabiil hebel ninkaas ka soo hadlay waa in dagaal lagu qaada marka nabadda ka talinteeda qaasatan waddankeena waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee warbaahinta laga doonayo inay soo bandhigaan la dooni maayo warbaahinta inay qariyaan dhibaato jirto hadduu qarax jiro inay qariyaan maaha hadduu jiro dhibaato inay qariyaan maaha laakiin haddii buunbuuniskooda iyo objectivekooda uu noqdo Soomaaliya ama Muqdisho inay tahay meel maartay dhurwaa ili wax ku cuno hadii waa been Soomaaliya hal sano ka hor laba sano ka hor sidii ay jirto maanta way ka duwan tahay better ways si wanaagsan uga duwan tahay marka waxa la doonayaa nabad inuu ka shaqeeyo wixii sax ah ee dhibaato ah oo aanu qarin uu soo bandhigo taas ayaa muhiim ah wariyaha sax ah inuu sameeyo waa tahay waa maxay caqabadaha hor istaagi kara wariyaha la safta musharaxa isagoo markaas xildoonka ah ama qof jeclaysiga wariyaha isagoo la safta ee buunbuuniya maxaad is leedahay bay dhaawici kartaa sharaftiisa iyo samcadiisa والشرفتيس waxa ka horeysa cabdisamed waxay tahay waa calooshii shaqayso noqonaya waa sidii kuubaanka oo kale markii ay Soomaaliya soo weerareen dagaaladii Ethiopia iyo Soomaaliya ku Yementii marka waxba u keeni mayso qofka sharaftiisa ayaa ku lumaysa waa ragga buraanbura rag badan baa buraanbura wariyaal ah oo ka soo gala radios ka soo gala dhanka iyo TV-yada ka soo gala meel kala duwan marka sumcad darro oo waxay ku keenaysaa long term ay ku keenaysaa cabdisamed waxaan filayaa freezer ayaad noqotay kuma aad ku dhigtaan u malaynayaa shaashad may si fiican ma aragtid waan ku arkaa laakiin dhaqdhaqaaq ma lihid laakiin codka waan maqlayaa marka waan sii wadayaa almuhiim waxay tahay wariyahaas dhibka ugu weyn ee soo gaaray waxay tahay magaca ama waxa loo yaqaan credibility ayaa ka lumaysa qof dhageysanay male wuxuu ordaya kaliya $1,000 $2,000 la siiyo ayuu ordayaa waa buraanburkaas markuu soo idlaanaya markuu soo ilaadana waxa ma hay ma dhihi karo wariyana ma dhihi karo waayo waxa lagu xasuustaa isagoo qof intuu soo ag fadhiisto amaanaya ama u heesaya ama buraanburaya wuxuu yahay ma laha bayaraatee waa tahay yaad haddaba suxufi u taqaanaa cabdi naasir marka kugu soo dhacdo kelmadda la yiraahdo suxufi yaad is oran kartaa wax qofkaas waa suxufi وبديه وفربديه عبد القادر محمد فرح دوليرو كله وحن ليه كره وسحفي وقت بدن كسو شقي اوبجكتيف oo dhinacna qofnaan u buraanburin oo shaqadiisa yaqaan maxamed deeq barre tusaalahan waa suxufi aad u weyn maxamed yuusuf cabdixaafid dad aad u fara badan aan soo dadkii hore iska daa oo maaragtay wariyaashii hore oo hareeri iyo raggii geeriyooday ilaahay u naxariistay ku kale iska daaba dad aad u fara badan gabdho aad u fara badan ayaa jira laakiin qofku waxaad garanaysaa inuu barnaamijyada u soo sameeya barnaamijyadaas oo ah
barnaamijyo tayo leh barnaamijyo objective ereyga ugu badan ee training aan ku samayn wuxuu objective waa in aad meel aad eegtayo tiigsi aad leedahay laakiin haddii aan soo fadhiisto tusaale ahaan barnaamijka 1980 muqdisho waxaanu ka helnay oo maaragtay noogu yaboohay wariye caan ah oo maxamed roberto la yiraahdo oo TV-ga Rai Talyaaniga u shaqeeya ayaa noogu yaboohay tarjumaadu wuxuu noogu qaatay 3 bilood ayuu noogu qaatay inaan ku sameeyno aan tarjumno luqadda Talyaaniga aan edit gareyno 3 bilood ayuu qaatay marka danteenu ma ahayn hal maalin barnaamij ku samee hal lagu sacabtumo qabiil hebel ama siyaasi hebel ku sacabtumo ma ahayn waxay ahayd objective 3 bilood waa waqti aad u dheer inay nagu qaadato kan kale oo qudmeenoo kale qudus qabiil uma aan tagin diin baan u tagnay dadka inaan barno aan educate ka dhigno dhulkan barakaysan ee muslimka laga haysto marka laakiin haddii maanta adigu aragtaa inaan meel aan tago musharax hebel anoo ammaanaya ama u buraanburaya aad aragtid oo qofkii ka soo horjeestana maaragtay aan ka soo horjeedo ama isla musharaxii oo maanta aan ammaanayay oo waxa fiican aan ku sheegayay berri aan ku arko isagoo qalad ku jira oo aan dhaho ma qaldami karo taas waxaa noqonaysa wariye ma tiid waxaa lagu qaataa Facebook ka soo galo kuwa in la yiraahdo wariye hebel oo habeenii maalin iska caaytamo oo maaragtay cabdisami waxaan arkay hadda ka hor ramadaankii waxyaalihii ugu yaabka badnaa aan ku arkay bishii barakaysan ramadaankiida lagu jiro ayaa waxaa dhacday 10kii ugu dambeeyay weli nin baa soo galay wuxuu soo fadhiistay Facebook oo la yiri wariye hebel baa la yiraahdaa magaciisa dooni ma aan sheego macna u leeyahay male markaas wuxuu ka hadlay ilaahay waxaan ka baryaynaa 10kan ugu dambeeya ramadaanka inuu naga dhigo kuwii maaragtay ilaahay jannada u si fiican buu hadlay waana weli lama afurin markii uu dhameeyay furitaankii hore wuxuu ku xijiyay eygan eygu dhalay oo hebel hebel nin madax ah oo la yaqaan oo caan ah wadanka laga yaqaan hadda ayuu wuxuu ku xijiyay wallahi waan yaabay wuxuu yiri eygan eygu dhalay oo tiri wallahi waan yaabay waa markii ugu yaabadii nolosheeda ninkan wariya la leeyahay 10 kun qofood daawanayso waa loo sacabtumaya intaas la leeyahay waxa ka socota caliya ka socota uu iska aytamay marka wariyaha TV hebel baan ka soo shaqeeyay radio hebel baan ka soo shaqeeyay social media ka soo baxay wariye kama dhigayso haddii aad tiraahdo wadaad baan ahay oo haddana aad soo gashid social media aad ku caaytid wadaad ma tiid waa in aad tahay qof nadiif ah discipline leh yaqaana hadalka ay objective leh laakiin hadda dad baa soo fadhiisanaya qof buu caaynayaa 1 hour wuxuu intaas doonaya inta qofood doona maalinta kasta wuxuu leeyahay 100,000 like baa la ii saaray ayuu leeyahay objectivekiisu wuxuu ahaa like iyo inta daawanaysu ahaa marka waxaan soo barbardhigaa bal wanaag fir wadaad baa soo galaya diintu ka hadlaya wax wanaagsan ka hadlaya waxa daawanaysa 50 qofood baa daawanaysa mid item ayaa soo galaya ama balay ka sheekeynaya 10 baa daawanaysa marka muhiimadda ma ahan cabsi inta ku daawata ma ahan waa tayada quality-ga shaqada waxyaabaha aan ku soo arkay social media markaan training u galo wuxuu ahaa in tayadaada ay wanaagsan tahay micna yeelan maysto ku daawata laakiin qofka hadduu ku yiraahdo alla ilaahay qofkan waa objective wax fiican buu ka hadlay wax baan ka faa'iiday taas ugu wanaagsan inta ku daawan lahay 20,000 oo hebel caynaya qabiil caynaya waxay faa'iido ay keenaysaa bayratay ma jirto waata cabdi naasir waadna heestaa fanaanna waa tahay oo adoo heesayo meel ka heesaya arkay heesta xasan aadan qaadaya maalintaas maxay ahayd warniyo horta aniga fanaan ma ihi haddii kale rag badan oo aan saaxiib nahay oo samatar uu ku jiro oo rag badan baa maaragtay weerar igu soo qaada qof walba meherkiisa ulda laakiin baashaal maaragtay naqaskaa la iska saaraa xilliyada kuleelaha ah ee cayaaraha la tago waa la iska baashaalaa marka dee soomaalidu ani dee soomaali baan ahay waxaana ka dhashay reer gabayaa ah oo aad u gabya suugaantana ku fiican marka waxaan idhi why not laakiin waa iska baashaal anigu fanaanna ma ihi mana heeso laakiin waa iska baashaal naqaskaa la iska saaraa farxadday ka mid tahay noloshay ka mid tahay lasma caburiyo laakiin marka heesta saad u qaadaysa adaaba xasan aadan samatar labaad ahaa si cajiibaad u qaadee markii ugu horreysay cabdisamed markii ugu horreysay marar badan baan qaaday laakiin hadda waxaa soo baxay fanaaniintii oo waxaan maqlaysaa cumar shooli xasan yare jubayare hadda waxaan ka yaabaa in mar dhow samatar yar leegu yeero maba laakiin fanaan ma ihi xasan aadan samatar waa ninaan aad u aqaano aan saaxiib nahay aan isla xiriirno runtii aad u qiimo badan marka aadayna farxad iyo waxay ii tahay maaragtay magac ayay ii tahay in maaragtay hees asaga uu leeyahay taada kale aniga haridigeed keliyaan qaadaa mid kale ma aqaanin hadda laakiin waxaan isku dayaa in aan kuwa kale suugaanta soomaaliya aad u jeclaa tusaale ahaan markaan soomaaliya tago fanaaniintaan raadiyaa
hadda waxaan la joogay waad aragtaa Nigeria ayaan la joogay oo ah la xamiistaha ugu weyn ee taariikhda Soomaaliya hadraawi marar badan ayaan saragnay marka dadkaas oo kale waa dadka ugu wanaagsan ee la fadhiisto oo wax laga qorto wax laga faa'iido marka heesa hirgalay haddaan soo galo kulli waa la sarki doonaa insha Allah waa tahay marka aad free tid ka leedahay aad leedahay waqtiga firaaqada maxaad qabataa Cabdi Naasir wallahi waa su'aal aad u wanaagsan inta badan Soomaaliyeed isma weydiiyaan inta waqtiga xorta ah aniga sportgan aad u jeclahay IT ka sokow IT-ga nambarooyina sportga waa jeclahay waxaan aad u jeclahay inkastoo shaqooyinkayga ay dibadda yihiin waxaan aad aan u xiiseeyaan u jeclahay waxay tahay booqashada dhulalka kala duwan meelo kala duwan ayaan tegey saad ku aragtid hadday ahaato bariga fog bariga dhexe xataa waddankan Falastiin ee la haysto 2006 markaan tagay barnaamijkan ka soo duubay meelo badan ayaan u safraa safarkan jeclahay waxaan tagaa meelo waxa ay geeyay shaqadan qabtay ay geeyay IT-ga ay geysay laakiin inta badan waxaan jeclahay waqtigayga in wadamo kala badan aan soo arko qaabka dhaqankooda cuntadooda say tahay aad iyo aad baan u xiiseeyaa safarada aan ku tago wadamada kala duwan Cabdi Naasir waa soo gabagabeynayna dhaqso insha Allah haddii la raali ka noqdo waqtiga gabagaba sidee ugu sahli lahayd suxufiyiinta aan awoodin inay kharashaadka barashada luqadda Ingiriiska ay bartaan inay bartaan maadaama aad online macallin ka tahay oo aad qayb online haysatid fursad ma siinaysaa suxufiyiinta raba absolutely ninkii suxufi ah oo doonaya luqadda Ingiriiska anigu ilaa iyo 12 sano waxaan barayay luqadda Ingiriiska iyo IT-ga dad aad u fara badan ayaa member ka ah oo arday aad u fara badan ayaa soo martay meel walba aan tagana ardayda waan la kulmaa marka qofkii suxufiya luqadda Ingiriiskana waa muhiim suxufi kaliya baan qofkii Ingiriis doonay inuu barto sologroups.com Ingiriis ayaa lagu bartaa dadka suxufiyiinta ah oo aan isku dhanka aan nahayna mar walba la soo dhaweynaya sababtoo ah luqadda Ingiriiska albaab ay ku furaysaa wax walba oo hadda adduunka meesha maraysid ka walwali maysid meesha doontid meelaha xataa aan laga aqoonin turkidoo kale inta badan Ingiriis lagu hadlo laakiin qofku ugu soo shaqeeya Ingiriis ku hadlaya marka luqadda Ingiriiska waa luqad muhiim ah oo la doonayo marka Ingiriiskii aan Soomaali ku baran jiray maahan tabcan oo pen pencil nib lion waxa sidii jiray maahan Ingiriiska aad ayuu fudeysay loo barto naxwihiisa lama baahna waxa loo baahan yahay inaad baratid qaabka loogu hadlo qaabka loo qoriyo marka haddii saddexdaas aad isu keentid waxa hubaal ah in waqti dhow lagu baran karo tan kale xilliga luqadda Ingiriiska la baranayna waxa muhiim ah in aad iska ilaalisid luqadaada originalka sida Soomaali ama luqad kale in aadan ku hadlin oo aad ahayd qof ku hadlaya luqadaas mar walba isku tijaabinaya qofka ugu fudud ee baran kara luqadana waxay tahay qofka qaladka sameeya laakiin haddaad tiraahdid waxaan ka baqayaa qalad inaan sameeyo maaragtay ma baranaysid hadda kahor barnaamij baan ka sameeyey luqadda Ingiriiska aan ku hadlayay dhammaan oo live ahaa dad aad u fara badan ayaa ka helay waana jeclay barnaamij noocaas inaan sameeyo dadka laakiin dadka soo gal ma fahmayaan waxay leeyihiin war ninkan maxaa ka qaldan muxuu af Ingiriis ugu hadlayaa meesha waaba Soomaaliya marka luqadda Ingiriiska albaabo badan ayay furtaa maanta shaqooyin Soomaali xataa ka jira iska dhaaf journalism ka jira waxa jira lagu leeyahay luqadda Ingiriiska ma taqaanaa haddii luqadda Ingiriiska baratidna waxaan filayaa waa luqadda ugu sahlan haddii laga reebo Talyaaniga la baran karo albaabo badan ayay ku furayaan insha Allah una sheeg raggaas wariyaasha ee baranaya albaabkan u furaynaa si fudud baan u furaynaa insha Allah rag badan wariyaal badan oo Soomaaliya jooga ayaa ila soo xiriiray markii ay maqleen in barnaamijka waxtarka wariyaha aad macsuun ku tahay waxayna ii sheegeen in ay internetka hayst helayaan laakiin lacagtii fiiga ahaa aysan awoodi karin aysan tegi karin meel kale marka si alaajigeeda ay yiraahdeen noo weydii in uu noo fidiyo in magaranaysa aan ku baranno si magaranaysa volunteer caawaan in ka ballan qaadaya waxtarka wariyaha ragga ka soo maray ee doonaya luqadda Ingiriiska inay bartaan gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa qof walbana wuxuu doona u qabanaya laakiin waxa laga doonaya qofkaas inuu noqdo qof doonaya inuu wax barto una barto dhanka wanaagga u barto dad badan ayaa ku qasaaray intay barteen oo maaragtay dab oogayaal iyo dhibaato marka gacmo furana insha Allah ku soo dhaweynaynaa aadan ugu baahsantahay intaas ka shaqeysay Cabdi waa tahay maxaad u soo jeedin lahayd suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta joogaan suxufiyada Soomaaliyeed waxa jira maamaha Soomaaliyeed waarimaysid war ka haro muhiimaddu waxay tahay haddii lagu xasuusto waxa jira nin wadaado hadda ka hor isagoo YouTube ka sheekeynaya barnaamij aan aad ula dhacaya jira waxa laga hadlay arrimaha social media iyo dhaqanka xun ee Soomaalidu hadda soo batay iyo dad qaarkood wariyaashu ay ka qayb qaataan wuxuu yiri dhibaatada ugu weyn ee dadka ka hadla warbaahinta qaasatan social media ee la arko isla markaan la dhageysto waxay tahay
markay dhintaan ajar ayaa u soconaya yiri ajarkaas oo ajarka waa bilcagsi marka haddii diinta faafinaysa YouTube aad soo gelisay markaa dhimatid ajarkaas kuu soconaya maanta haddii YouTube 1 hour aad ka sheekeynaysid balaayo isku dir qabiil dhibaato caay maxaa dhacay markaa dhimatid ilaa waa dhimanaysaa waxaa hubaala cabdisamed adna waa dhimanaysaa waan dhimanaya qof intana daawanaysan way dhimanaya markaa dhimatid maxaa dhacaya marka waxaa dhacaya ajarkii bilcagsiga ayaa kuu soconaya marka weriye dadku waxay kuu qiimeynayaan ana waan arkay marar badan ayaan arkay aniga followers badan dad badan ay daba socda ayaa jira dad badan oo i dhegeysta ayaa jira maybe waxa laga yaabaa xataa boqolkiiba 40 konton haddaan helo aan ku faraxsanahay hadday dhegeystaan waxaan aniga aan sheegayo intaana ma ahan in qabiil ahaan ay u jecel yihiin ma ahan inay lacag aan siiyo ma ahan in lacag inay siiyaan waxay isleeyihiin at least cabdinaasir wax baan ka faa'iiday ama wuxuu sheegay wax baa ka jira waxyaabii u yaabka badnaa waxay ahayn intaan dhammayn habeenkii cabdi maxamed cumar shaqada laga eriyey diri dhabe ayaa 6 saac habeenimo laga soo sheegay oo waqtiga UK ayaan joogay xilliga waan soo qoray dad badan ayaan ku faraxsanayn waxay yiraahdeen waxba kama jiraan waa been abuur been baad ka hadlaysaa bilaayad ka hadlaysaa ninba wuxuu soo qoray dadkan intaan sheegay screenshot baan qaatay iyo yiri cabdinaasir waxyaalahan kuma fududaado yiri waan runtii aniga waxyaalaha qaarkood kuma fududaado iska ilaaliya sababtoo magac ayaa kaaga lumaya cabdinaasir waxyaalahan kama fududaade wuxuu yiri waxaan siinayaa buu yiri 6 saacadood baan siinayaa buu yiri kadib baan rumaysanayaa maxaa ka dambeeyay maalintii ku xigtayna 5 saac kadibna nin cusub oo dhalinyaro la keenay oo ninkii hore kala ah la keenay meesha marka muhiimaddu waxay tahay credibility wax la yiraahdo waa muhiim marka wariye aad tahay waa in dadku ay ku dhihi karaan markaa soo gashid alla ilaahay waxaan ka faa'iiday hal erey ayaan ka faa'iiday ama wanaag ha ahaado iyo dadku waxay jecel yihiin inay maqlaan wanaag ay jecel yihiin maanta haddii aan idhaahdo xamar si fiican baa loogu quracday maanta dad baa niyadeeda u dhismaysaa laakiin haddaan soo galo maalin walba aan u soo galay kaliya xamar qarax baa ka dhacay ari baa lagu dilay nin baa lagu xirisaan iyadoo loo baahan yahay marka in la sheego kuwaas loo baahan yahay laakiin haddii aan ahay shakhsi ka shaqeeya kaliya dhibaatada waxaad noqonaysa dadku waxay ku dhahayaan warkii baa soo galay way si kaa baktinayaan marka ha u malayn 1000 qof 2000 ama 10 hadday ku daawanayso u malayn inaad tahay ninka ugu caansan ugu bilaada maanta ani adiga caaf haddaan idhaahno waxaanu ka sheekaynaynaa habeenka arooska wax la isku sameeyo waxaa soo gelaysa 50,000 laakiin maxaan sameyn waxba ma aan sameyn laakiin maanta haddayna daawadaan 50 qof ama 20 qofood dad kaloo sii daawanaya way sii gudbinaya waxay leeyihiin alla ilaahay laba erey baan ka faa'iidaystay marka suxufiyada Soomaaliyeed waxaan ku waaninaya oo aan dhahayaa suxufinimada waa la bartaa wariye ma ahan inaad soo fariisid Facebook wariye waa sida dhakhtarka waa sida lawyerka waa sida architect meel baa loo galaa training baa lagu siinayaa imtixaan baa laga qaadaya haddii aadan gelin gal isku day soo bar waa la bartaa soo gudbi laakiin wariyaal qaarkood tviyada aan ka arkay wararka soo gudbinaya eriye qaarkood ku hadlaya waraysyada ku hadlaya qaarkood waa iska baqayaan dowlad goboleedyada u shaqeeyaan kama hadli karaan waxyaalaha qaarkood markay dadka u buraanburayaan waxyaalahaas waa waxyaala la eegi kara ma ahan marka waxaan ku waaninaya ragga cusub ee hadda soo baxaya raggii hore kuwa hadda jiraba in sida wariyaha oo caalamiga ah oo kale u shaqeeyaan waana mahadsantihiin waa tahay soola magaca la yidhaahdo manaanays baa xagu ka yimi horta magacaas soola marar badan ayaa la weydiiyey marar badan iyo cabsime la weydiiyey runtii asxaabtana daawanaysan oo u gudbinaya horta dadku way isku qaldaan waxay isku qaldaan dad baa waxay soo qoraan zola ay soo qoraan af Soomaali horta ugu horeyn zola kuma jiro magaca waa sa ayuu ka bilaabaa Soomaaliga sa SOLA ayuu ka bilaawdaa sa marka waa naanays waagii aan yaraa anoo talyaaniga jooga la bixiyey weligay waxaan iska aqoon yar socdo keligii baan iska ahaa marka ereyga meeshuu ka yimid marka dad waxay ku leeyihiin zola war nin kubadda ciyaar la jiro gaaban annadee nin 6 mitir baan ahay oo Soomaali oo DNA-ga Soomaalida watee marka zola ay yiraahdaan inta iyo ma kala yaqaanaan mid baa waa wuxuu samaystay magacaygu samaystay Facebook inta badan magacayga lama samaysay nin baa ii samaystay markaas markuu samaystay wuxuu soo qoray arin naxdin leh baa dhacday waxaa geeriyooday buu yiri cabdinaasir soolo ayaa galabta asoo caruurtiisa meel ka doonay ayaa gaari waxyaalo cusub aan ku sheegay mogtahay yaa gaari la gadiyay iyo ilaahay u naxariisto wallahi geeri naxdin leh marka gabar baa isoo wacday asxaab aan nahay markaas waxaan arintaas bal ka warnay tiri intuu ku yaalaa bir meeshi baan qaaday waa u soo share garay marka dad badan baa comment ka bixiyay dad runtii aad uga naxay laakiin aan u soo share garay waxaan iri dad xun baa tihiin 31 Febraayo dhintay ilaahay haddana qof isu tacsiyay male 31 Febraayo ma jirto Soomaali ma jirto Febraayo 31 ma jirto Soomaali
aakhirad kala soo marka dad badan baa comment ka bixiyay wuxuu waxaan idhi aakhiraan kala soo hadlaya geeridu waxa la waa taboo waxyaalaha aan laga hadlin laga baqo laakiin geeri waa inevitable waa laga maarmaan sida caawsku jilaalka kale laga maarmo ninkii suu ugu socday markii dambe intuu isku xishooday wuu masaxay cabsimed wuu masaxay ninkii intuu isku xishooday sababtoo ah aniga wax kasta igu soo xumee laakiin geeri waan sugayaa way iimaanaysaa maalinta iimaatan waan ogahay dad badan oo iska dhaaf kuwa ii dhow waalidka iyo walaalaha iska dhow dad badan aan is aqoonin Soomaali isku nahay oo geerida xanuunjin doonta ayaan ogay haddaan ka hormaro laakiin geeri liskuma fadaxil iskuma caayo iyo caayadana maba shaqaynayso taas horaa loo daalay marka soolo iyo arrimaha bulshada meesha ka yimaadeen waa tahay laakiin kelmadda soola waa talyaani macnaheedu wuxuu yahay Soomaaliyan marka waa talyaani waa keligi da soola ayuu ka yimid waa keligi waa keligi taliyo kale waa keligi waa tahay gabagabadii ugu dambayntii barnaamijkan waxtarka wariyaha faa'iido nooca ah buu leeyahay u leeyahay suxufiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed maxaad ka faa'iiday wallahi aniga marar badan ayaan daawaday inkastoo cabdiqaadir maxamed faarax duudarkiisaan iska ilaaliyo inaan daawado waxaan aad uga helay hareeri waraysigiisii hareeri inaan saaxiib nahay rugacda ah legend oo journalist ah iyo dhalinyaradii faraha badnaa aad waraysatay qaladaad badan ayaa la saxayaa dad badan ayaa wax ka faa'iidaya dad badan ayaa oranaya wariinimaan doonaya inaan soo galo sababta wariinimada waa wax aad u wanaagsan runtii qofka awood weyn ayay siisaa maanta wariinimada wariyaasha oo sax ah ay jira ka hadli maayo dadkan intay Facebook soo galaan iyagoo dhidida ay kuwa ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa dadka caadiga ayaan ka hadlaya marka waxyaabo badan aniga laftiga waxyaalo ka faa'iiday hareeri iyo raggii kale waaweynaa markaad waraysanaysay waxyaalo badan ayaa ka faa'iiday sababta raggaas oo kale waa la dhegaystaa waxay sheegaan waa la qaataa maaragtay saaxiibkay dul yaran waxyaalo badan aan ka faa'iiday waa maaragtay shakhsi wariinimada aad u yaqaana is ilaaliya home cable waa TV kaliya hadda la dhihi karaba waa meel loogu hagaaga ayuu leeyahay kuwa kale maaragtay hadda TV ma la fiirsado kulley sida hadda ay ku socoto 2023 TV dama jiri maayo xataa kuwii gaalada jiri maayaan kuwan Soomaalida iska badbaado waayo social media qof walba halkan ku haysta isaga isu madax bana isaga wuxuu doona sameynaya marka waxyaabo badan ayaa ka faa'iideystay insha Allah mustaqbalkan waxaan aad ugu faraxsanahay inay ugu casuumi doonto aad baan kaaga mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa Cabdinaasir Soola oo barnaamijka waxtarka wariyaha igala qayb qaatay Cabdinaasir guuleyso mar koowaad iyo mar labaad baan kaaga mahad celinayaa ما شاء الله والسلام يا أديك يا دمان أصحابته سود دياري برنامجك يا دمان رير سويدن إن شاء الله مركله هدي فرصة هدي شدنا وإلى سو حرير كتير هدي ويراد aad baan ku salaamay waa mahadsantahay aniga Cabdinaasir waxaan idinka tagnaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga qaaliga aad noo horteen asxaabtiina la sii